بايات قتيبي وفلكس ودك تلانيقة مقالة فرنسية ورك جرون كشك ما تعرف سوق قادنا بشيء تاع لباتن بشيء تدور لباتي أفر ورك جرون كشك وهرب أنا كسوقاته مدحويني حسن الشيخ محمود وحبضن أيان الله هذلني وحبضن أيان أدقني وحبضن أيان كونري لبس سنة أو وناك سنة سوق دبتي هذا هو لبدي سنة أتقوال لهيد وعربنا أمريكا inaad guratid beertii aad abuuratay madaxweyne xasan shiikhow wax badan aan kula hadalnay waa diiday waxaan rabnaa marka inaan kuu sheegno wax badan ayaa waxaa tiri hebelow yaan lugaha dhiiqada lagu gelinin hadda waxaan filayaa madaxweyne xasanow inaad hadda dhiiqada dhexda aad ka taalid waddankan wuxuu leeyahay nidaam shalay ayay ahayd waxaana laga qaaday imbaarkoogiina saarnaay ee hubka waxaad og tahay hub haddaad soo gadatid inuu matricolaat yahay oo number wato markaad waddanka keentidna waxaa loo baahan yahay qolka markii la gelinayo qori kasto in numberkiisa liiskaas lagu qoro mase computerka la geliyo xabada inta la keeno sidoo kale la sameeyo saas daraadeed si looga fogaado maadaama amuuro badan ay ku qarsan yihiin aan ognahay rag adiga kula shaqeeya aan ognahay ayaa hubkan keenay hubkan caqli yaa la rabo marka hore in lagu soo gudbiyo laakiin ragaa hoos arrintii ka kashifay hubka meesha uu soo maraayo iyo meesha u soo socdo fahmay raggaas waxay ogaayeen hubkaas kii lagu dili lahay inuu asiga yahay qoorqoor dabaal maaha nin waxa fahamsan waaye waad aragteen qoorqoor ma qarsanin warqad dheer oo qoray isla waqtigaasna waa soo duulay safiirka maraykanka u yimid see wax u yaalaan ayuu u sheegay iyadoo weli nidaamka oo baal maray oo gees maray maxaa yeelay waa maamul goboleedna awood iyo sharci uu fasaxayo inuu baxo oo safaarad la shiro ma jiro asigoo madaxweynihii joogo ayuu ninkaas u tegay ayuu la shiray marka waxa waaye meesha way iska caddahay see wax u yaalaan xasan haddii asiga labadan sano ayaa u dhiman oo damacsanaa ragga saaxiibadiisa ah ee hadda lagu tilmaamayo hubka inay ayaga keeneen way iska caddahay inuu xasan wax ka og yahay hadda waxaa lagu tilmaamayaa 3 nin iyo xasan oo kaabahooda ah waana la og yahay 3daas nin iyo xasan shiikh waxay isu yihiin iyo waxa ka dhaxeeyo wax la og yahay aan qarsaneen waaye waa ninka koowaad waa Mahad Salaad ninka labaad waa liibaan shuluq ninka la leeyahay ninka saddexaadna waa ninka la yiraahdo cabdinaasir cali adoon ninka la leeyahay waaye xasan shiikhne waa ninka afraad ee meesha kaabaha ka ah markii wax la qabto nidaam loo maro ayay leedahay waxay ahayd hubkan markii lagu qabtay xuduudka mase Itoobiya dhexdeeda ha ahaato mase meesha rabta ha ahaato waxaa la rabay isla waqtigaas in la iclaamiyo in hub intaas gaarayo hubkana marka hore la fiiriyo sida uu yahay sida uu u socdo laga warqabo adduunka loo sheego macnaa ciidamo tiro badan loo diro hubkaasna uu noqdo hub la soo galbiyo isla waqtigaasna adduunka loo sheego raqamkiisa nambarada oo watana la fiiriyo qoladii laga soo gaday Etoobiyana ayaga naftirkooda in embargo la saaro ayay mudan yihiin maxaa yeelay hubka ay soo gataan haday dadka jiriskooda inay ka gadaan isku laynayaan waa waxaan la qaadan karin marka madaxweyne xasan warqada ay koo soo direen waxay ahayd in hub la qabtay hubkina ay niisa soo wado ay soo hogaaminayso alora waxaa la ogaaday niisa inay tahay macnaa
wax magacii lagu qarinaayo laakiin arrinta si kale u socotay allora raggii dareensanaa in lagu soo maqan yahay ayaa wixii ka shifeen ma aha cabuud waaq inay og yihiin wax baabuurtaas xawi imaalinay baabuur martaa baabuurkaas haddii baabuurtaas aan la farmuuqinin cid fahmi karti ma leh horena saasay u soo mari jireen marka waa iska caddahay nimanka ku daaban xasan shiikh inay hubkaa ka dambeeyaan warqadii la soo saarna waxaa ku caddeed inay ciidamo soo wadaan ciidamadii jidka loo galay hubkii la bilqaystay hase ahaato guddigaa la diray ma filayo guddiga haddii inuu wax qaban karo mase hub keeni karo un waxa waaye adduunka un la maqalsiinaa in oo macnaa arrintaas ay qalad u dhacday wixiina ay dad dhexda ka boobeen waxaa la rabaa in lagu qariyo saas daraaddeed shalito wasiirkii warfaafinta ayaa shir jaraa'id qabtay asigoo 6 qodob miyaa 5 qodob soo saaray بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورصحافدات سيدي توبنك بشا جولاي سنة 2024 مدحوينها جمهورية فدرالك سوماليا أهنا تليها جود عدمada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gudoomiyay kulan caadi ahayn oo uu yeeshay golaha amniga qaranka maanta taariikhdu tahay 18 Juulaay sanadka 2024 kulanka ayaa qodobadii looga hadlay waxa kamid ah dhacdadii hubka sharci darada ahaa ee sida dhowmaaleysiga ah lagu soo geliyay deegaano kamid ah dowlad goboleedka Galmudug intii uu socday shirka waxa warbixino laga dhageystay hay'adaha amniga iyo la taliyaha amniga qaranka oo ku aadan dhacdadan iyadoo goluhu uu isku raacay go'aamadan soo socda goluhu wuxuu adkeeyay in waaxda kormeerka hubka ee rasaasta CMD ee xafiiska amniga qaranka oo horey ugu soo baxday dekreetada madaxweyne 142 ay sii wado isla markaasna ay xoojiso korjoogteynta iyo la socodka maareynta hubka iyo rasaasta wasaaradda amniga gudaha waxaa la faray in ay soo gudbiso warbixin faahfaahsan iyo talooyin ku aadan dhacdada hubka sharci darada ah ee dhowmaaleysiga lagu soo geliyay dalka lagulana xisaabtamo cidda ka dambaysa isla markaana laga hortago dhacdooyin noocan ah inay dhacaan mustaqbalka goluhu wuxuu isku raacay dhamaystirka siyaasadda qaran ee iibka hubka degdegna loo horgeeyo golaha wasiirada goluhu wuxuu isku raacay mamnuucidda iibinta iyo ka ganacsiga hubka wasaaradda cadaaladda hay'adaha fulinta sharciga waxaa lagu adkeeyay in si degdeg ah maxkamad loo soo taago dhammaan dadkii ku lugta lahaa hawshan sharci darrada ah madaxweyne dr xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyay muhiimadda weyn ay leedahay in si adag loo hirgeliyo shuruucda xakamaynta hubka iyo rasaasta wuxuuna adkeeyay in guusha laga gaaray qaadista cunaqabataynta hubka ay aasaas u tahay hirgelinta siyaasadda dowladda ee xakamaynta hubka kulankan waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre ra'iisul wasaare ku-xigeenka mudane Saalax Axmed Jaamac wasiirka cadaaladda iyo dastuurka mudane Xasan Macalin Maxamuud wasiirka arrimaha gudaha Ali Yuusuf Cali wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi wasiirka maaliyadda Biixi Imaan Cige wasiiru dowlaha amniga gudaha Maxamed Ali Xagaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Ibrahim Sheekh Muxudiin agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Ali Sanbalooshe taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeye Guuto Sulub Axmed Firin taliyaha ciidanka asluubta Mahad Cabdiraxmaan la taliyaha amniga qaranka Xuseen Macalin iyo agaasimaha madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Cabdixakiim Maxamed Yuusuf mahadsanidin qodobadaasna uga hadlayaan sidii wax loo qaban rabo guddiga amniga qaranka ayaa fariistaa la yiri waxba ay soo saareen iyadoo la rabo qowda maqashii waxba ha u qabanin adduunkana indhaha looga rido dadka indhaha looga rido dadkina waa la soo qabanaya la yiri haddii dadka la soo qabanayo maalintii kow ayay ahayd in la soo qabto xasan shiikh hadda dhiiqada u isgeliyey oo lugaha gashtay waxa waaye waxaa laga rabaa ninka niisa u diray cidda u dirtay iyo cidda mas-uulka ka ah imaha salaad iyo cabdinaasir cali adoon
waxaa la ogyahay gacanta mid geyso oo xasan sheekh inay yihiin xasan sheekh meeshaas ma ka maqna marka waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego soomaaliya madaxweyne kasta oo yimaado wuxuu ka bilaabaa danihiisa koow oo ka bilaabaa wuxuu rabou dilaa wuxuu rabou xoogaa wuxuu rabou dhacaa markii uu waddanka ka tago wuxuu ogyahay in la dacweyneynin maxaa yeelay kii bedelay wuxuu rabiyaa jidka uu asiga maray inuu maro laakiin haddii la samayn lahay madaxweynihii waqtigaas joogay wixii uu hadlayay in lagula xisaabtamo maxkamad lagu soo saari lahaa dhibaatadan maanta jirto way baabi'i lahayd waxaa wax lala yaabo ah gabar niisa ka mid aheed oo ikraan tahliil dhahay oo xasan sheekh la oynaayey oo mahasanaad la oynaayey oo rooble la oynaayey oo waxaan ku idhi farmaajo iyo afaad yaasiin meel ay galaan ay waayeen gabadhii wixii dilay la sheegay ninkii qaadi la sheegay baabuurkii lagu qaadi la sheegay oo wax kasto bannaanka lasoo dhigay dowladdii way dhacday dowladdii dhacday waxyaalahay ummadda ku suubinaysay dowladdii timid waa ku suubisay maxaa yeelay faad yaasiin sidoo rabaha ku yimaado kulligood say qaladay ku wada yimideen maalin cad ayaa kursigiisa in loo diiday ayaa ninka laga siiyey xataa laguma tartamin nin kalaa la siiyey markee qalad in la saxa lama rabo fahad wuxuu ku andacooday inuu asiga wax dilin fahad 8 muxaadaro 9 muxaadaro miyaa ma oga uu sameeyey video ah oo uga hadlayay waxaa loo baahnay markii ay dowladdiisa dhacday farmaajo iyo fahad yaasiin dowladdooda ay dhacday waxaa la rabay ay kuwaan yimaadeen ay shalay ka daba qeylinayeen waxay ahayd inay furaan buugga dacwada oo lagu soo eedeeyo gabadhii ikraan tahliil ciddii dishay iyo meeshay ka baxday aawi ninkii oynayay oo dhahaya aniga waxaa lay soo sheegay waa lay handadi aawi intoo ka baxay ma leh marka ogaada waddankan dadka hadduu dhinto waa dameer dhintay waa aragteen nin askari ah hadda la xukumayay nin ay soo wateen inay ceelku ridaan ay rabeen ay dilaan way dileen waa aragteen waddanka waxa ka jiro gabadhi waxaa loo maleeyaa inay ceelkaas ku jirto gabadhi meel ay ku dambeysay iyo meel ay ka baxday lama yaqaan gabartii elman oo dhalay meeshii xalan dhexdiisa ayaa laga soo toogtay qoryahan sniperska lagu soo toogtay madaxa laga jibiyey cid isu daba kacday ma leh gabar kwarta biyaana laga soo tuuraa la yiri waa la farxumeeyey cid isu daba kacday ma leh dad badanaa la laayay cid isu daba kacday ma leh dowladda timaado sidii ay samaynaysaa hadda xasan sheekh asiga naftirkiisa waxaa suuragal ah sidoo hadda ku socdo hadda kusii socdaan asiga naftirkiisa inuu gacan ku dhiigla uu noqdo dad la dilo markii dadka waa banaan baxayaan asaa dhahaya shalaa la banaan baxo filmaanka haynaa marka waxa waaye ummadda soomaaliyeed ha ogaato inay meeshaan dad dowladda raba inayna joogin dadkan waa dad lacag kaliya u socdo xoolo kale inay qaataan rabaan waa aragteen shaliyo wuxuu dhahayay ragga maxkamadaha la geeyo xasan sheekh masaajid oo ka dhex dhahayay ragga maxkamadaha la geeyo ninkii ashoorta noqdo oo wax lagu waayo waa nin fiican oo shaqadiisa ka soo baxay shaqadiisa iyo shaqo ka fiican aan siinaynaa hadda shalito xamar waxaa yimid saabay oo wax lagu waayey haye shaqadiisa ha loo celiyo ninkii la dhahayay maxaa la dhahay coffee waa walaxa lagu waaleeray waa inaa sharaftiisa iyo shaqadiisa loo celiyaa waa inaa abaalgud la siiyaa ma leh xasan qof la arkay inuu meesha ka disho rabaa marka xasan sheekh waxaan u sheegaa waxa waaye annaga hanugu been hawaasinin guddiga amniga shirinay qaranka nimankaa maxkamad saaraynaa bal waa arkaynaa cidaad maxkamad saaraysid ciddii hubkan keentay bal waa arkaynaa annagoo og xamar cirtoog intuu ku yaallo oo xabadaha laga soo gato iyadoo weli la wada ogyahay ciidamada dhan qoryaha ay haystaan inuu nin kasta asiga leeyahay markii ninka la qoraayo la leeyahay ninka asigoo qori haysta keena ninka qori asigoo haysta waa in la geeyaa taas ani marka ma doonta waa anaa markhaati ka ah
anaa qori gadi oo ninka lagu shaqaalaysiinayo haddii kale ninka ma la shaqaalaysiinayo ninaan qori haysanin cid qoranaysa ma leh marka hubka saasoo u yaallaa marka xasan nimankii aan kaa sugaynaa inaa maxkamad soo saarto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu